إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadaradii aan uga hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka gaar ahaana waxaan ku jirnaa qaybtii afaraad waxaynu ku jirnay oo aan ugu soo hadalnay muxaadarada midii ka horeysay sunnooyin fara badan oo soonka leeyahay soonka sunnooyinku waxaa ka mid ah salaada taraawiixda waxaynu ka hadli doonaa insha Allah tacaala salaada taraawiixda iyo axkaam ku saabsan salaada taraawiixda waxyaabihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nuujidiyey waxaa ka mid ah bishaan ramadaan ee barakaysan salaada loo yaqaano salaadu taraawiix waana sunna mu'akkada xukunka marka laga fiiriyo waa sunna salaadan taraawiix baa lagu magacaabay sababta taraawiix loogu magacaabo maxay tahay dadku waxay ahaan jireen afar ragca markay dukadaanba in ay istariixi jireen ama ay naso jireen macnaheedu waxa weeyaan laba ragca markay dukadaan oo salaamo noqsadaan haddana laba kale ay dukadaan oo salaamo noqsadaan afarta ragca markay u dhammaato ay xoogaan naso jireen maadaama ay ahaayeen dad istaagooda oo dheer yahay xoogaa istariix bay samay jireen salaada taraawiixda in jamaaca lagu dukada ayaa fadli badan weliba masaajid dhexdiisa lagu dukado maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa buu dushiyey masaajidka buuna ku dushiyey habeena kadibna asxaab dib ugu dhacay asagoo ka baqaya salaadii in lagu farad yeelo sida ku sugnaatay bukhaari iyo muslim ummuna caaishata radiyallahu ta'ala anha waradaha waxay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidka buu ku dukaday dhowr habeen waxaa nabiga la dukaday calayhi salaatu wasalaam dad kadibna habeenka xigtay buu dukaday dadku way soo bateen habeenkii saddexaad ama habeenkii afaraad nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixin waaga markuu u bariyay ayuu nabigu wuxuu yiri qad ra'aytu alladhi sana'tum waan arkay waxa samayseen nacni min al-khuruj ilaykum illa anni khashiitu an tufrada calaykum ina idii soo baxa wax ii diiday ma jiro waxaase ka baqay in salaadii ku farad yeelo saad u jeceshihiin salaadii baan arkay in lidii ku farad yeelo baan ka baqay oo hadhowna aad awoodi waysaan saasaan uga harin mooyaane ina wanaag iyo khayr aad doonayseen waan u jeeday buu yiri xadiisku waa saxiix bukhari muslim ayaa soo saaray halka waxa laga qaadanaa salaada taraawiixda in jamaaca lagu dukado weli fil masjid lagu dukadaay in fadli badan ay leedahay saana way sameeyeen saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulka geeriyooday kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qaama maca al-imaami hatta yansarifa kutiba lahu qiyaamu layla qofkii imaamka la istaago oo imaamka la xirto ilaa imaamka uu salaada ka soo baxaya waxaa loo qoray qofka asaga qiyaamu laylatin habeen istaagideeda baa loo qori macnaha waxa weeyaan qofka la xirta imaamka salaada taraawiixda waxaa la rabaa inuu la dhameysto dad qaar waxay sameeyaan arrin khada ah oo markii 8 ragca ay marayaan ay ka baxayaan oo salaada ugu tagayaan imaamkii arrintan arrin sax ma ahan imaamka hadduu dukanayo 8 ragcadood oo taraawiixa iyo 3 witr oo 12 uu ka dhigaya wayba fiican tahay arrinta mushkila ma lahan hase haddii imaamka haday dhacday inuu dukanayo 20 ragcadood oo markuu 8 u gaaran aad ka baxdo arrintaas arrin wanaagsan ma ahan waxa laga rabaa inaad ka faa'iideysto fursadda iyadoo markii imaamka aad la xirato aad la dhameysato faa'iido aad heleysana waxay tahay habeenkii dhan aad salaatuleel u taagnaa ayaad la ajir noqonaysaa xadiiska waa xadiis saxiix abi daawud iyo qeyrkii ayaa soo saaray meel kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qofkii ramadaanka istaaga rumayn uu rumaysan yahay waxyaabaha alla agtiisa ahaaday iyo ajir doon soo ah qofkaasi muxuu helayaa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dambidiisi hore waa loo dhaafi waxa salaadaha lagu dhaafayo oo isqaadka lagu dhaafayo oo soonka lagu dhaafayo umrada lagu dhaafayo waa dambida yarka oo saqaa'irta dambida waa waxa shardi in laga toobad keeno xadiisku waa saxiix bukhari muslim ayaa soo saaray taraawiix marka waa sunna thaabita ah waa sunna sugan oo la rabo in la yimaado waxa rabnaa inaan ogaano imisa ragcadood baa la dukanaya salaada taraawiixda waa garan inay sunna tahay jamaaca lagu dukado inay fiican tahay waliba masaajid in lagu dukado inay fiican tahay imaamka dad la xiratana in la dhameysato inay fiican tahay taraawiix inta ragca baa laga dukanaya waxa laga dukanaya inta laga dukanaya amar nabi ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay intaana lama dhaafi karo ama inta laga ma yareey karo horta ma jiro arrinkan waxay culimadu yiraahdaan waa waasac sheekh islaam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi wuxuu leeyahay
qofku wuxuu leeyahay inuu 20 ragcadood dukado sida mashhuurka ka ah madhabu Ahmad iyo Shaafici wuxuu kaloo leeyahay inuu qofku dukado 36 ragcadood sida madhabu Maalik uu qaba wuxuu kaloo leeyahay inuu dukado 11 ragcadood ama 13 ragcadood wax kas intaas oo dhan way wanaagsan tahay buuri wuxuu leeyahay marka ragcooyinka oo la badiyo ama ragcooyinka oo la yareeyo waxay ku xiran tahay qiyaamka oo la dheereeyo ama la gaabiyo haddii qiyaamka la dheereeyo ragcooyinka way yaraanayaan oo maxay yeelay qiraa'adii waa badan haddii qiraa'adii la yareeyo ragcooyinka way badanayaan maxay yeelay qiraa'adii ayaa yar Umar ibn Khadaab ta'ala anhu dadkii wuxuu ku jamciyay inay la dukadaan oo imaam uu noqdo Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu waradahu wuxuu dushiinayay 20 ragcadood saxaabadan waxay ahaayeen kuwa ragcooyinka badiyo iyo kuwa yareeya hadda la leeyahay xaddaas lama dhaafin karo ama lagama yareyn karo ma jirto qofka saan wuxuu dukanayaa salaada sida uu suura gasho oo yaan maaragtay u wanaagsan ee salaada uu ku xasilaya oo Alla ugu dhawaanay subhanahu wa ta'ala waxa meesha ku jira walaalayaal in salaada taraawixda lagu murmo oo la isku qayliyo ama la isku naco cadadka la dukanaya Imam Ahmad radiyallahu ta'ala anhu waradahu waxa laga sheegaa ilaa 300 ragcad uu dukan jiray markii Ramadaanka la gaaro arinka markuu waa arin يعني مرقتي واسعة قف كسا أوديسا إن نشاط كيسا السيد معنى عبادة وجعليه وقوم عن سنة كحران ويان هدي أورعين بدن دكادو قراءة ويرانية هدو قراءة ديريانا رعين كبا يرانية هذا سي أسرقش بدكاد هدو قف كدكاد كوي طبعا أو يوتر كلا جرتو أما أودكادا صدن إليه أما لباتن يصدح ووتر كلا جرتاي هذا قف كسي وجعليه هاي ama yaani ma tanashaadkiisa oo ku jira asiga baa garanaya oo waxa wanaagsan in qofka nashaadka loo daayo yaani arinku waa muwasac weeyaan maxay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man qaama ramadana iimanan wa ihtisaban qaama ramadana wa isaagi hadiiska cadad ma sheegaya muxuu sheegaya on iimanan wa ihtisaban labadaas raba li ayli iimanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi nabiga wuxuu yiri alayhi salatu wasalam salatu al-layli mathna salaada habeenkii la dukado waa laba markaasuu nabigu wuxuu yiri haduu qofka ka baqay inuu waayo ku bariyo ama salaada ay ku dhalato witr haduu kado waa ku soo qatay salaadiisa witr salaatul leelku waxa lagu khatimaa sideedaba witrka weeyaan arintaas mas'alo raacsan oo waxa jirto ay culimadu ka hadlaan oo ah salaada taraawixda ma la qaybin karaa 10ka daba ee bisha Ramadaan waxaan ognahay 20ka hore in la dukadanayo si caadi ah laakiin 10ka daba ee bisha Ramadaan intii la sameeyo jiro cibaado ah cibaado kaba in la sameeyo baa la doonaya inta cibaado kaba in la sameeyo hadii la doonaya tusaalahan qofka haduu dukanayo 20 cadood intuu kala qeybiyo oo 10 galin karo u dukado markuu duu ka soo kacana 10 kale u dukado mi u banaan tahay arintan maxay culimadu ka yiraahdeen arinta ku saabsan salaada taraawixda oo la qeybiyo waliba 10 daba la qeybiyo culimadu ilaa laba qeyb ay u kala saaraan waxa mustaxab horta marka hore in habeenada Ramadaanka ah waliba 10 daba la nooleeyo si gaar ana loo nooleeyo 10 daba ee bisha Ramadaan oo la liimaad cibaado dheeri ah iyo dadaal fara badan iyadoo la raadinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala damdaafkiisa in xariistiisa iyo waliba iyadoo lagu dadaalaya sida loo waafaqi lahaa Laylatul Qadri oo ka khayr badan kun bilood oo u dhiganta 83 sano iyo 4 bilood taraawixda marka waxay kamid tahay qiyaamul layl waa yiraahdaa taraawixna waa yiraahdaa fuqahaadu waxay isu khilaafsaneen qiyaamu Ramadaan in sunnah tahay maxay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man qaama Ramadana iimanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه علماء الفقهاء waxay yiraahdeen taraawixdu waa qiyaam Ramadaan oo taraawix hadii lagu magacaabo iyo qiyaam Ramadaan hadii lagu magacaabo kulli isku mid bay dhaheen sida ugu fiican waxa weeyaan markii taraawix la dukano ama qiyaam Ramadaan habeenkii intiis ugu badan hadda waa la yareeyaa Soomaan habeenkiis inta ugu badan waxa jirta marka aimo fara badan oo markii la gaaro bisha Ramadaan 10keeda daba salaada taraawixda cishii kadib bay dushanayaan si toos ah way xaafadu beetay soo jiifanayaan way soo laabanayaan oo mar dambeetay wixii dukanayaan salaatul qiyaamul layl ama qiyaam Ramadaan ka asiga mashruuc miya mashruuc ma ahan asal ahaan way banaan tahay qofkii intuu ka soo kaca qiyaam Ramadaan uu dukado wax maanicaayana arintaas ma jira sababtoo ah 10ka daba ijtihaad dheeri in la liimaado baa la doonaya Sheikh Abdullah ibn Abadin ayaa wuxuu yiri mas'alatun fil jawab amma ankaru ba'd an-nas amman salla fil 10 al-awakhir min Ramadana زيادة على المعتاد في 20 الأول مسألة لو جوابية dad qaar ay diiday 10ka daba ee bisha Ramadaan 20kii hore cibaadada la sameeyay wax ka badan lama sameey ka dad baa yiri sababta ay ku ekeereen waxa uu yiri waa galabatul aada ayaa ka qalab noqotay iyo sunnada nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam oo ay ki jahil yihiin iyo saxaabadii iyo taabiciinta amatul islaam
waxay ku sugnaayeen ay ka warhaynin marka waxaan leenahay buuri qad waradat ahadithun an nabiy sallallahu alayhi wasallam ahadith faradan baa nabiga ka sugnaaday alayhi salatu wasalaam oo dadka jeclaysiinaya qiyam ramadan in la istaago salaad la dukado iyo in la isku booriyo waxaana cadaatay buu leeyahay salaad tarawih la yiraahdo ama qiyam ramadan hal uu magacaabe oo cadad maxduud ah ma jiro culimadu waxay yiraahdeen waqtigeeda wuxuu ka bilaabanayaa salaada cishaha sunnada markii la dukado kadib ila waaga uu ka bariyahayo tobanka daba markii in la nooleeyo baa la doonayaa maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii hore dadka jamaacada uu ku dushiyay saan horab u soo sheegnay jamaacada wuxuu uga haray in uu ka baqay dadka salaad in lagu fard yeelo oo hadhowna ay awoodi waayaan almuhim marka waxa wanaagsan inaan salaad taraawixda iyo murun aan la gelin marka dad qaar baa waxay leeyihiin tobanka daba wax dheeri holal imaan kar ma jirto waxaan ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam tobanka daba ijtihaad uusan sameey jirin ama dadaal uusan bixi jirin 20 ka hor ayuu bixinayay Soomahan saxaabada nisaas bay ahaayeen taabiciinta nisaas bay ahaayeen aymatul hudana saabay ahaayeen qofka bisha ramadaan markuu soo gaaro waa fursad weyn inuu ka faa'iideysto oo salaadu leyl iyo quraan akhris iyo cibaado iyo sadaqa iyo alla bari oo badi baa la doonayaa Sheikh Salah Fawzan ayaa wuxuu leeyahay wa amma fil 10 al-awaqir min ramadana tobanka daba bisha ramadaan markii la gaaro fa innal muslimina yaziduna min ijtihadihim fil ibada muslimiintu waxay kordhiyaan buuri dadaalka ay ku bixinayaan xagga cibaadada ayuu ku daynay nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam doonayna habeenka leeyatul qadriga oo ka qayban bilood Sheikh Salah Al-Fawzan wuxuu leeyahay falladina yusalluna 23 rag'a dadka dukanaya 23 ragcadood fi awwal shahr bish bilawgeeda yuqassimuna fi al-10 al-awaqir tobanka daba way qaybinayaan fayusalluna waxay dukana 10 rag'aatin fi awwal layl habeenka inteeda hore waxay dukanayaan 10 ragcadood oo ay ku magacaabeen buri tarawih ويصلون 10 في آخر الليل habeenka aakhirkiisana way dukanayaan ay dheeranayaan qiraa'adi iyagoo saddexda witrkan raacinaya waxayna ku magacaabeen buuri qiyam hadii qiyam lagu magacaabo ama tarawih lagu magacaabo magacyada bay kula duwayeen mooyaane isku meel bay wada socdaan buuri oo dhammaan waxa wada dhihi karaa tarawih baa la dhihi karaa ama qiyam baa la dhihi karaa hadalkaas oo si wata wuxuu yiri wa amma man kana yusalli fi awli shahri amma qofki bisha inteedii hore ama 20kii hore 11 dukanayay ama 13 dukanayay wuxuu ku dariyaa 10ka dab markii la gaaro 10 ragcadood buu ku darayaa habeenka aakhirkiisa uu dukanaya wuuna dheereenaya si uu uga faa'iideysa 10ka dab ee bisha ramadaan fadhiga ajirka badan ay leeyihiin iyo si uu kordhiyo dadaal uu ku bixinayo khayrka iyo wanaaga arintan wuxuu uga dayanaa buuri saxaabada ridwaanna calayhim iyo aymadii ka dambeeyay waxay ahayn saxaabada ridwaanna calayhim iyo aymadii ka dambeeyay dhamaan in ay 23 ragcadood ay dukan jireen 10ka dab marka la gaaro habeenka waxay dukanayeen qaybtiisa hore 12 ragcadood ama 13 ragcadood galinka dambana waxay dukanayeen 10 ragcadood maxay jamcinayeen marka 23 ay dukanayeen dadkii marka hore 23 dukanayeen oo 3 witr ah iyo 20 tarawih ama qiyam ramadaan ugu magacaabo Sheikh Islam Taymiyyah rahmatullah alayhi kitabkiisa Majmu' al-Fatawa wuxuu yiri qofkii yiraahdo salaad tarawihdu ama qiyam ramadaan hal yiraahdo had bay leedahay oo la dhaafi karin ama aan laga yaray karin qofka asaga uu qadami buuri oo inuu saxa u baahan waxa la doonayaa marka bisha ramadaan inaan ka faa'iideysano waliba go'tomankeeda daba cibaadooyinka in laba jibaarno hadii Rabbi subhanahu wa ta'ala oo ku gaarsiiyo bisha ramadaan 10keeda daba waxa rabaa inaad ka faa'iideysato hada wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh